yeerayaa imika shakhsi aad iyo aad u qaaliya oo aad wada taqaanaan oo hadal cad oo geesiya oo runta sheega oo cadawga Somaliland aad iyo aad uga baqan injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Xuseen gudoomiyaha xisbiga UCID ayaan jeclahay inaad u kacdaan oo si wanaagsan waliba u soo dhaweysaan ayaan jeclahay kaliya la farxadunka aaday dadku ku kaceen jeer qosol maalinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي مهد له سبحانه وتعالى إلهي بكلي مهد له إلهي سبحانه وتعالى عافمات كنسيي إلهي رحمات كنسيي إلهي دلكين نوسع إليه ومهد له سبحانه وتعالى ولا ليال وحن مركو رئيسة أنا بليانيا ardayda ka soo baxday ee maanta ku soo biirtay bahda indheer garadka ah ee mujtamaca reer Somaliland waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa waalidkooda oo aan ognahay maanta inay iyagu la dul joogeen kharash anuu markan wax bartay ilaa jaamacadda reer family-gay washeen lacag kuma bixin maanta waxaan ogahay inay tacliinteenu badan lacag tahay dhaqaalaheenu aanu fiicneen marka dadkaasi waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay tacabkiina tacab ku maashaan oo dalkii diinta wafaca ka yeelo waxaa kalena aad iyo aad u hambalyeenayaa macallimiinta ka hirgala alfa iyo madaxdeedaba alfa markii la abuurina waan ogaa alxamdulilah jaamacadaha Soomaaliya badankooda ilaa laga bilaabo jaamacadda Amuud waan ka qayb galay asaaskeedii taariikhsana waan ka qayb galay waxaa ku xigay Golis waan ka qayb galay Armis waan ka qayb galay marka waxa weeye saasaan hadii Allah u dhiirigelina waxaan garanayaa qiimaha tacliintu leedahay baan garanayaa subxaanahu wa tacaala walaalay waxa weeye intaanan gelin hortaa khudbadayda nuxurkeeda waxaan aad iyo aad u hambalyeenayaa shaqaaqadii ka taagneed ceel afweyn oo inala jiitantay 4 sano ayaynu arrintaa ceel afweyn iyo agagaarkeeda aynu ku mashquulsaneen way soo dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin odayaasha ka qayb galay waxaan leenahayna waa mahadsantiin aad iyo ilaahayna ugu mahadnaqina taas walaal horta maanta dalkeenu meesha waxa ilaahayna siiyay wax adduunka ku yar oo ah nabadgelyo waxa ka taagan adduunka waa ogtiin jaararkeena waxa ka taagan waa ogtiin nabadgelyada aynu ilaahayna siiyay subxaanahu wa tacaala jamcaheena ayaan ku sameynay dibad wax kama helin waxaan maalin marka akhriyaa book la yidhaaho meeshaan macaawina tegin baan akhriyaa where there is no aid waxay sheegayaan 1992 ilaa 95 Soomaaliya waxa lagu isticmaalay $4 bilyan in nabadgeliyo lagu helo ilaa maanta waa ogtahay halkii mariso innaga waxay soo qaadayaan buugaasi shirarkeennii nabad raadista ahayd kii Boorame ayaa u badnaay waxay yidhaaheen 100,000 oo doonarista oo 2 doonar keeno midna yahay Mareykan midna Sweden ayaa ku baxay marka aynu nabadgelyada ka shaqeynayaan peace building ku jirnay waxaan moodin inuu adduunku ina nacay waxba ina siinay leese waxay ahayd khayr bay ahayd aan shar moodino maanta Soomaaliya waxa haysta waa wadamada gacanta kula jira marka waxa weeye dalkeenu wuxuu ku jiraa meelaha ugu istiraatiijiyad fiican
xagga istiraatiijiyadda waxa weeye uu ku jiraa economic potentiality-gana aad iyo aad buu u dhaqaale badan yahay adduunka hadda waxa saca grooming baa socota isgroup garaysanaya kooxeysta oo waxa lagu tartamayaa dhaqaale iyo istiraatiiji labadaba diiradda innaga nagu hayaan kooxaha tartamaya mushkiladda maanta dalkeena ka taagan in 30 sano aynu u weynay ictiraaf iyo inaan xuduudaheena gaadhnaa mid mushkilad dibadda nagama timi maaha waa mid gudaheena waa gudaheena exclusively waxa weeye waa internal problems gudaheena wey waxa weeye dalkan markii aynu soo ceshanay xornimadiisa dhiig loo huray iyo markii aynu asxaabta multi party samaynay labada waa laga leexday xeerkii ujeedadii waa laga leexday wixii Soomaali baabiyay wixii Yemen baabiyay ayaan soo ceshin oo ah qabiil maanta qabiilka ayaa ka xoog weyn magaalada asxaabti maalintan asxaabta ururada aan furnay qabaa'ilku may garaneen ururada macnaheeda waan la bariyeen war yaa urur furta waati cigaal lagu yiri 45 bari ku baabi maantana waxa la leeyahay reer kasta wuxuu doonayaa gudoomiye urur inuu yeesho sheekada socdo waxa leeyahay wadaniyo u dhiibiyaa gudoomiyaha ucudii u dhiibiyaa gudoomiyaha muxuu ahaa kulmiye u dhiibiyaa gudoomiyaha ma jirto war yaa wadanka wadiya yaa wax qabanaya yaa darajo keenaya ma jirto inta ku fakaraysa way yar tahay ee codka bixisaa waxaan ka codsanayaa waa mid oo dalkiina ilaashada oo waxa ogaataa u samra talabaadna codka idinka bixinaya maanu tabarbaran tago odayaal baa la shiriyo odayaal ii yimi ayaa mid u yimi wuxuu ku yidhi war ka bax meesha maad ogeynay 3 agaasimo la idin siiyay way baxsadeen da agaasimi la siiyay wad barbaran nalkayga caabinaysa nal may u sameynayaan horta waxa ay nagu socdo walaalayaal waad arkaysaa Faadima Saciid yani iyadoo shakhsiga waxay qabatay waad arkaysaa hadday dawladdu doonayso inay wax qabato inta ay ka badan bay qaban lahayd laakiin uma jeedo waa horta yarkan wasiir ku xigeenkan imanka tacliinta de horta Muuse uu ku qaldamay ma noociisi maaha wuxuu sheegay maarayso wuxuu sheegayo siyaasadii uu sheegay wasaaradii uu sheegay maalinta waxaan ka qayb galnay burcan ka qayb galno waa fariid yar wallahi laakiin ma noocii madaxweyne ma aha siiraayo wallahi billahi Muuse maaha saasaa loo baahan yahay inuu wasiirku uu sheego qorshe hadduu hayaa wey waxaan leeyahay walaalayaal doorashadii dhaweyto si fiican baa u gasheen oo Cabdikariim iyo waxa soo saarteen ya batoon barqad qabyaalad baa u ftiraaheen tii ka weyneed bay noo soo socota tii ka weyneed halkii ka miisa haddii kale waxa weeye waxay isku dhacaysaa prime ministerka Ingiriiska 1945kii Churchill ayaa wuxuu soo raacay taxi isagoo prime minister oo BBC-da wixii BBC-an interview ka bixinayay magan soo raacay buu yidhi tagay BBC-an taxiga yidhi isug intaan soo dhammaysanayo taxiga aan interviewga wuxuu yidhi taxili maya waxaan sugayaa waxaan ku degdegayaa khudbadda Churchill baan ku degdegahay oo ku sugi kari maayo wuxuu yidhi wax kastaan siiyey lacagtaan ku soo raaco $5 aheedoo 10 baan uga dhigay 10 markaasuu iyo waar badda ku dhacay waan ku sugayaa Churchill waxba sugmay adaan ku sugayaa buu yidhi markaas maalin sidaas shacabka ay u garaacaysaa anu baan odhanaya maalinta codka odaydii maayo waar badda ha ku dhaco waar badda Faysal ha ku dhacee qabiilkii halkaasuu maray ku rida horta bahashii iska ilaaliya walaal maxaa maanta qabiil ku haysta ilaahay baan ku dhaariyay maanta maxaa ku haysta waxa weeye 2016 abaar bay nagu dhacday abaar waxa soo guuray
30% ilaa 40% oo reer miyigeena way saamaysay magaalo kasta waxa degan IDB baa degan lacag yar bay u diraan international organizations waxaynu karinay inaan 6 gobolba 6 vacation iskuul ka sameeyno oo crash program oo 6 bilood ah oo inoo bartaan si taylka loo dhigo sida loo rijiyeeyo ya maynu isku daynay maanta waad ogtiino ilaa qaldawalaha wuxuu ka yimaadaa Yaman asnabigii baa inoo wada shaqadeys waxaynu noolahay sidii Sacuudiga oo kale dal baansiin leh oo dad iskiliga soo u baahnay ma noqon waxa weeye maanta oo Hargeysa waxa ka socda waa aragtaa Muqdisho doorashadii aqalka sare ee Soomaaliland baa ka socota yaa dooranaya salaadiin aynu qoomba dooranaya xagee lagu dooranaya xamar aqalka sare kale Soomaaliya waxa lagu doortaa degmooyinka baarlamaanka soo soorta imaka waxa inaga firfircoonba kuwii xaqaa tagay xamar ayaa inaga firfircoon barigii hore waa la iska tagi jiray qaar ba iska laba ogaan jirin hadda shalayta waxaan ku qosliyay ardaa cida galaal aha waa la dhacay cadaalad baan u baahanay farmaajo waa la dhacay kursi waa lagu tartamayaa oo maanta taas waxay ku tunsisaa inuu niyad jab ku dhacay shacbigeena niyad jabka laga daayo dawladdu xasan rajaha u abuurto rajaa dadku ku nool yahay haddaynu state of hopelessness naqaro waxba magaa dalkeenu masku koriyo chance fiican baynu haysanaa doorashadaasi magac bay noo soo jeeday magacii baa lala dagaalamayaa inay tu kale oo wanaagsan oo madaxweyne oo dhacda inaanay inoo imo baa la ku shaqeeyay wada aragteen waxa ka dhacaya laascaanood dadkii baa la laynaya may dhici jirin hadday laascaanood ay nabad ahayn Soomaaliland ma nabad bay noqonaysaa security ahayn maalinta tale ministarka lagu dilay iyadana xudun baa la igu yiri way soo durkaysaa waa inaynu priority-ga siinaa security-ga ku nooleena security-ga priority-ga siinaa baan doonaa walaalayaal waan idin ducaynayaa insha Allah ta'ala khayr baan idin ogahay markan khayrka waa markan isticlaanaa weey waa markan isticlaano salaanta isku badino xumaanta iska xijino kitaabka Ilaahay sunna xasuusano walaalayaal loo baahay wixii Ilaahay na faray wanaaga waxaan leeyahay hambal iyo hooyooyinka waxaan leeyahay hooyooyinka dadku ma jiraan waalidka hooyo ayaa maanta dalka wada dhaqaale iyo xanaanaba hooya wada Ilaahay hooyooyinkiina khayraasiya walaalayaal Ilaahay khayraasiya waan mahadsantiin aad iyo aad mahadsantiin waan idin soo ducaynayaa doorasho fiican bay noo dhici doontaa insha Allah ta'ala madaxweynuhu wuxuu noqday ninkii la oran jiray Cabdiraxmaan Tuur Ilaahay u naxariistay wuxuu noqday waa madaxweynihii dalka xoreeyay cigaal muxuu noqday Ilaahay u naxariistay waa madaxweynihii inoo dhisay aasaaska iyo tiirarka maanta ku noolnahay riyaale muxuu sameeyay riyaale wuxuu hirgeliyay dimuqraadiyadii buu shariif u qabeeyay siiraaya muxuu sameeyay DB World buu keenay investments kaasoo keenay kalidoorku keenay Muuse muxuu keenay laba doorasho isku xidhay tii saddexaadna ma kororsanayo maxay saasal isku dhiibaya maxay noo haray kii Kenya horumarka iyo itiraafka iyo badhaadhaha kaasna insha Allah waa aniga sallallahu alayka aad u mahadsan yahay gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faysal Cali Waraabe aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay waa gabagabadii xafladda halkii ugu dambeysay dhammaanba madaxda xafladda ka soo qayb gashay oo dhan aad iyo aad baan ugu